موصو ciilkaaga waa ogeyn maanta waad soo bitaacday laakiin halkan wax guul aad ka gaaraysaa ma jirto ilaani qofka ugu dambeeya kaaga dhinto aadan ka tageyn insha Allah wuu kaaga dhiman doonaa markaas aad tagi doontaa reer SSC assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta ka bacdi hada la kadib waxaan rabaa inaan in yar idinka dabageeyo dhacdooyinkii la saaka ilaa hadeer oo ay shantii galabnimo tahay taariikhduna tahay 18 May 2023 maalin khamiis maanta gelinkii hore ama aroortii hore todobadii waxay jamhadda SNM ee cadawga ahi ay sidoodii caadada u ahayd dagaal weerar ah ay ka soo bilaabeen dhinaca bari ee magaalada muddo yar ka bacdina waxay ka soo bilaabeen dhinaca waqooyiga labada meelood oo labadaba dagaal xoog li ka dhacay una xoog badnaa dhinaca bari oo ay doonayeen inay ka soo galaan magaalada si ay ciidoodii beenta ahayd ay ugu ciidaan magaalada ama qayb ka mid ah hindisahaasi wuu suurtagali waayay waxayna kala kulmeen jab iyo naasabeel bay kala kulmeen waxa loogu geystay dhibaato weyn oo dhimasho iyo dhaawac intaba leh khasaare aan cidna koobi karin baa loo geystay waxaana lagu celiyay meelihii ay ka soo duuleen iyo kashishay baa la gaarsiiyay inta haddaan inta ka gudbo taantaas ay noqoto wixii maanta ka dhacay iyo xaaladdu say tahay hadeer oo aan joognana dagaal socda ama ma jiro iyagina waa fogaadeen waxaan rabaa halkan inaan kelmad yar ka idhaahdo shirkii ama uu sameeyay Muuse Biixi uu ka hadlayay maanta wixii uu ugu sheegay xafladda ugu sheegay waxaan oran lahaa ama aanu leenahay haddaanu nahay bulshada SSC awal la aanu ogeyn inuu yahay nin ciil qaba maantana wuxuu cadaystay ciil qabkiisii wuxuu cadaystay ciil qabka uu qabo harti wuxuu cadaystay ciil qabka uu qabo daarood iyo kuwa qabo Soomaali oo dhan oo ciilkeedii kula dhacay bulshada reer SSC waanu qalanaa waanu u godobownaa Soomaali dadkii uu tirinayeen waa u godobownaa sida uu wuxuu dhigay soo socdana waxay u egtahay inuu ciilbeel ama argoosi doonayo waxaad ka hesho cidna waxa ka siin laakiin bulshada kale muxuu ahaa reer Sheekh Isaaq iyo ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa oo aan waxba ka oranayn baan la yaabanahay cidda uu maamulka u hogaaminayo oo horjoogaha u yahay oo u sacbinaysa oo mashaarada ugu daraysan la yaabanahay waxaanu leenahay war iska qabta oo ummadda Soomaaliyeed ka qabta halaga qabta ummadda Soomaaliyeed muusow ciilkaaga waa ogeyn maanta waad soo bitaacday laakiin halkan wax guul aad ka gaaraysaa ma jirto waana ku cadaysatay inaad muxuu ahaa ilaani qofka ugu dambeeya kaaga dhinto aadan ka tageyn insha Allah wuu kaaga dhiman doonaa markaas aad tagi doontaa haddaan inta ku dhaafo ummadda Soomaaliyeed ee ciil qabka Muuse ee uu Soomaali oo dhan u ciil qabo ee uu Soomaali la wada dagaalamayo waad aragtaan dawladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha kale ee muhiimka ka ah hogaaminta dawladda Soomaaliyeed waxaanu idin leenahay ka hadla oo ka qabta ummadda ninka sidaa u hadlaya beesha caalamka waxaanu leenahay Muuse maanta wuxuu cadaystay horena aad u ogeydeen inuusan dagaalka joojinayn inuusan ka baxayn inuusan wax wada hadal iyo xaajood midna ka gelayn waa intii aan ogeyn anagu
وأنو أنت أيضا لهين ورني كان نبض مصعده وحمدين يهي waxa qofka bili aadanka ah oo tacadiga noocaas ah geysta wixii lagu xukumi jiray uu mudan yahay waxaan u baahanahay waanu gaarsiinaynaa beesha caalamka gaarsiinaynaa in ninka la geeyo maxkamadaha cadaaladda iyo meel kasta oo dembigiisa lagu qaadi karo in la geeyaan soo jeedinaynaa ummadana laga qabto Soomaaliyeed iyo SSC khaatumo sida uu la dhaqmayo oo dagaalka aan joogsiga lahayn habeen iyo maalin ee uu ku wado ummadda SSC waxaan ilaahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dal iyo dibad meel aad joogtaanba waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa wada jirkiina waxaan idinka mahad celinayaa shaqo kasta oo aad qabanaysaan oo wada jirkiina waad dhimanaysaan waadna dhaawacmaysaan laakiin waxaad u dhimanaysaan waa dalkiinii weey waa ubadkiinii waa aayihiinna dambe waa noloshiinna haddeer inta hadha waxaan leenahay guul baad joogtaan guul iyo gobonnimaad joogtaan ha ka dibdhicina inaad hore uga socotaan mooyaan ha ka dibdhicina in yar baa idin hadhay intaana waad gaadhaysaan ilaahay iidankiis waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonnimo meelaad joogtaan